saaxiibadana qiimaha badan ku xidhan barteena YouTube-ka ee Cabdalla Deqsiye sidoo kale Facebook page-keena Xogdoon Media waxaan maanta idin haynaa baan ka hadlaynaa Samira iyo Kiki CK oo si cad u kala dhaqaaqay iyo waliba jacaylkoodii oo hadda si cad loo shaaciyay inuu guul daraystay oo ay kala tageen iyo Mama Faisa oo la talisay Samira Qowaan una sheegtay inaynan dhageysan hadalka dadka ee hay jacaylkeeda Kiki CK si farxad iyo qiimo badan iyo qadarin leh hay u adhalsay soo kale Kiki CK oo la arkay isagoo gabar kale la baashaalaya arrimahan ayaan mowduuceena maanta kaga hadli doonaa balse saaxiibkayga qiimaha xaalaha oo inta aanan muuqaalka guda gelin amba aan ku faahfaahin marka hore waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka like saarto sidoo kalena u share garaysa saaxiibada kale ee Facebook kana waa Kiki CK oo isaguna caawinaya dadka abaaruhu saameeyeen taasna mowduuc ayaan ka hadli doonaa balse daawade marka hore waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka like saarto una share garayso saaxiibada kale ee Facebook aan ku bilaabay Kiki CK iyo xaaskiisa Samira Qowaan ayaa si cad u kala dhaqaaqay taasi oo hay Samira soo bandhigtay wajiga dhabta ah ee Kiki CK iyo sidoo kale qofka uu CK sidoo kale Kiki CK waxa qof ayay tiri anan lahayn qof macnaha qof anan la guursan karin amba guri la deey karin sababtoo ah waa nin naaga badan ayay tiri oo in badan naaga kale iyo dad kale ku dhex jira oo hanan waqti siinin iyada iyo farxadeeda iyo dholacadeynteeda midna aan qadarnayn arrintan ayaa si weyn u shaacisay inay Kiki CK iyo Samira ay kala dhaqaaqeen dhinaca kale Kiki CK iyo arkay isagoo gabadh kale la baashaalaya muuqaalo qurux badanna ay TikTok ga soo galsay iyagoo isku duubay arrintan ayaa si weyn u weeqday xidhiidhkii Kiki CK iyo sidoo kale Samira Qowaan hase ahaatee wali ma uu shaacin isagoo Kiki CK inuu jacaylkiisa ka samray oo uu ka hadhay balse iyadu ay sheegtay inaynan dan kale hayn hadda kadibna ay meel kale ay ka tashi dambe iyo farxad kale oo cusub hay raadsan doonto waa sida ay Samira afkeeda ka tiri qaani sidoo kale fadeexadan weyn ee la arkay iyagoo CK iyo gabadha kale wada baashaalay ee TikTok-da inta kale ku soo bandhigtay ayaa si weyn u saameeyay xiriirkii hay wada lahaayeen Samira Qowaan iyo sidoo kale Kiki CK haddaba saaxiibada qiimaha badan oo waxaan toddobaadkii dhaweyd inay weerinay inay Samira iyo Kiki CK iskooda dhici doono sidoo kale shalay amba daraad meelmahaas waxaan idin soo warinaynay inay Samira iyo Kiki CK si weyn u kala tageen amba ay kala fogaadeen haddana waxaan maanta idin sheegaynaa inay arrintani ay saas ku bedeshay oo ay Samira ay sheegtay inay wiilka la baashaalay gabadha kale la baashaalay jeeday isagana ay wiilka raasn u too ishacayl ka baxayso sidoo kale Mama Faisa ayaa la talisay Samira Qowaan oo sheegtay inayna jacaylkeeda cusub faraha ka qaadin kadibna ay ku fara adeegto taasi oo laga yaabo inay dib isku soo celiso xiriirkii ay lahaayeen Kiki CK iyo Samira hase ahaatee wali lama hubo inay isku soo noqon doonaan iyo inay fadeexada weyn halkan Kiki CK ka raacday haysa darteed uga tagi doonto Samira maadaama ay tahay qof asturan sheekad ah inta badanna jecel inay ku soo gasho baraha bulshada iyadoo niqaaman qof sharafna ahayd taas ayaa si weyn saaxiibadina qiimaha badan oo la isku weydiinaya lama soo ogo hadda inay isku soo laaban doonaan laakiin hadda xiriirkooda say u badan tahay waa ay kala socdeen oo way kala fogaadeen saaxiib qiimaha iyo sharafta oo Ilaahay ku siiyay ku laban laaba ee waxaad noo saartay channelkan subscribe dhinaca kale mowduucan waxa ku jiray oo kaga hadlaynay oo qaybtiisa dambe aan ku soo qaadanaynay inuu Kiki CK ururinayay lacago isagoo oo si leef ugu jira isaga iyo waliba qoys Samira intii ay wada joogeen ee aysan kala tagin taasi oo hay dadku Soomaaliyeed si weyn u soo dhaweeyeen lacag $12,000 aan hawleefka ku ururiyay isagoo leef ku jira sidii dirta cabdi waa $1,000 ururiyay laakiin arrintan sidii oo kale maanta inaan kaga hadla lama hay laakiin mowduuceen ayay nagu jirtay walaa aan gadaal aan lacagtan inaan sheegno iyo arrintan dib ugu reebnay haddaba saaxiib mowduuceena xiga ayaan nagu soo gudbin doonaa arrintan faahfaahsan maasin